بسم الله الرحمن الرحيم. انفلونزا حمى معدية يسببها فيروس يتميز بالالتهاب الرشحي في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو العصبي، يصعبها صداع وأرق. وياي xanuunkani waxa weeye macnaheedu waxa weeyaan xanuunkani waa xanuun gudba oo la isqabadsiiyo waxaana sababa oo ilaahay soo uga dhigaa fayruuskaas oo ku soo lagu garto ama cadayn u tahay inuu xanuuno qofka horta habdhiska neefsiga oo sababada ayuu gaadhaa. wuxuu ka bilaabmaa sanka ilaa cumaha ilaa hoos busada, dabeetna wuu aad buu adkaadaa. dadka qaar wuxuu u wecdaa xagga dheefshiidka, dadka qaar wuxuu u wecdaa xagga dareemayaasha. waxaana la socdaa xanuunkani madax xanuun aada iyo hurdo la-aan. xumaduna waa ta keliya ee marka horeba sheegay aad buu leeyahay. marka xanuunkani waa xanuun daran, haddii la iska daweeyaana dawadiisa la cunana waa xanuun dhib yar. xanuunkani markaa waxaan wixii aw hayo ama aw ka baqayaba aan ilaahay dartii ugu diranaa dawadani. markaa dawooyinka adigaa haya soo ma? dawooyinka anigaa haya. sax weeye. markaa ciddii aw hayo ama ciddii ka baqasaa telefoonkaaga ayay soo garaaci, telefoonkayga soo garaacsaa, lambarkayga ayay qaadanayaan. markaa qofku xitaa dalka dibadiisa hadduu joogo dawadiisa u helay waa isku midun waayahay. dibadda joogo iyo hadduu wadanka joogo. sax weeye. sax waayahay. lambarkan shaashadu ku qoran yahay. halkaasaynu kala xidhiidhi. waa sheekh maxamed ibraahim cigaal. halkaasaynu kala soo waa sheekh inta badan dawo dhaqameedan aada ugu taqusay, dad badan daweyn jiray. xanuunada uu daweyn jiray waxaa ka mid ahaa virus ama jeermiska ilkaha ku dhaco kaloo ilko aad u daweyn jiray oo lagu wada yaqaano. waa sheekh caanka degmada Dila. tanna iminka waa uu hayaa buuggiisa wakaa, isagana iyada lafteeda wuu cadeeyey. insha allahu tacaala dawo dhaqameedkana waa sheekh aad iyo aad ugu taqusay qaybahaasi. markaa qof kasta oo aw hayo ama ka baqaya wuxuu kala soo xiriiri doonaa lambarkiisa insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.